munaasabadan oo ahayd mid loo soo agaasimay si ballaaran laguna qabtay magaala madaxda waddanka Sweden ee Stockholm ayaa ujeedadeeda ugu weyn waxay ahayd soo dhaweyn maamuusid loo sameeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo maayirka golaha deegaanka ee magaalada Gabiley waxaana barbar socday oo aan ka marnayn isxoog wareysi u dhaxeeyay labadaasi mas'uul ee dalkii hooyo ka yimi iyo jaaliyadaha ku kala nool gobolada iyo degmooyinka waddanka Sweden una dhashay jamhuuriyadda Somaliland waxaana ugu horreynba xafladaasi ka hadlay dadkii soo qabanqaabiyay oo isugu jiray aqoon-yahan waxgarad odayaal haween dhalinyaro siyaasiyiin iyo weliba dad kale waxaana ay ka warrameen ujeedada xafladaasi oo ay ku sheegeen inay tahay soo dhaweyn iyo maamuusid ay ku soo dhaweynayaan dalka Sweden labadaasi mas'uul ku soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow ummadaadii aad baan ku soo dhaweynaynaa waxa kale oo aan halkan runtii aan iyagana aad uga mahad celinayaa dhammaan madaxda sharafta leh wasiir ku-xigeenka dhammaantood waxaan leeyahay soo dhawaada anagu waxaan nahay haddaan nahay haweenka reer Somaliland oo isku duuban amca furan qalbi furan anagoo isku duuban ayaanu soo dhaweynteedu tahay aananu marna ka daalin goor baanu taaganahay waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya ururka iyaga gobolka Gabiley ee nasiiyay inaan saas kugu duubnaano ee nasiiyay madasha quruxda badan ee martida ku soo dhaweynano goor walbana garab jooga ururkaasi waxaan leeyahay kii jiray jooga Ilaahay ka dhigo Somaliland iyada inagu filan iyada ayna deeqda haddaan isu cadaalad sameeyno in himilo qaran la lahaada waxay kobcisaa in himilo gobol la lahaado himilada gobolka waxay hagaagaysaa himilada magaalada waxay hagaagaysaa himilada qofku waxay hagaagaysaa marka halka la wada hiigsanayay ee aan qaranka la dhiso Somaliland dadkeeda waxaan rajaynayaa qof walba fariintiisa inuu ku contribute gareeyo maayirka iyo wasiirka waxaan leenahay ku soo dhawaada dadkiini ku soo dhawaada oranaya ninkii wuxuu ku oranaya nimankii odayaasha ahay halka ka shaqeeyay ee baska wada dadka wada soo waxay Somaliland waka baska istaagay hadhay waxay dhamaan waddankayga oo mudaharaadayna dabadna wala isku tabinaya mid kasta mid kale u tabinaya qadad saarka bilaabmaysa fariinta labaad aan ku faraynaa waxa weeye hadaan nahay qorayaashii Somaliland ee halkan joogta maanta inta maqamay aan maanta afkoodi ku hadlayo in magaalada maanta madaxda u tahay ay yeelato insha Allah arkiif amba maxaan ku raadayay kay oo wax kasto qaranka magaalada Gabiley ay leedahay insha Allah lagu kaydiyo waxa kale oo aanu aad iyo aad u jecelahay inaa ugu horeysaan oo madashay ka sheegaya oo waliba hadaa ku dhaqaaqdaan way fududahay oo sameeysan laydinku dayan doonaa oo noqon doonta maayirkaasi inuu bilaabay waa diiwaanka degmada Gabiley ina sameeysan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada bulshadiinii oo idinku casuumtay caawa kulankan qaaliga ee ay iskugu yimaadeen dhammaan bulshada kala duwan ee reer Somaliland meel kasta iyo dhinac kasta oo ay ka socotaba waxaan ku leenahay ku soo dhawow anagoo si xooga ku soo dhaweynaa qalbi furan iyo gacmo furan mas'uuliyiin ku hadlaya magaca xisbiyada u ciidiyo kulmiye oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen sida ay muhiimka u tahay isku duubnida shacabka Somaliland meel ay joogaanba waxa weeye anagu horta xisbiga u cid baan nahay haddaan nahay waxa weeyaan doorashadii waanu soo marnay dhowr goorna waanu soo marnay taayadii way noqon weyday haddana waxa weeyaan tan doonana waxa weeyaan Somaliland oo mid ah oo horumar gaadha anagu waxaan doonaynaa inaan wax sameeyno laakiin si ummadii waxay dooratay xisbiga kulmiye marka de waxaan leenahay waan la shaqaynaynaa wixii khaladana waan idin sheegaynaa wixii wanaagsanna waan idinku taageeraa laakiin si wax ku soonaataan maanta cadowgeenu uu farabadan yahay waxaan leeyahay xisbiyadu dadka xamideeyaan hay soo dhaweeyaan dadku hay soo dhawaado unity-geenu ha muuqdo aan meel ka wada xadhig jiidno haddii ayna meel ka wada xadhig jiidin waxay noqonaysaa wixii aynu 28 sano ka hor aynu ka halganay baa dib inoogu soo noqoto taasna khasaare guud bay inoo tahay
waan aaminsanahay dadkeenu inaanu marnaba dayacayntaa uu meel u wada jeedo midnibadeenna ha adkaato Soomaaliland ha noolaato ha jirto ha joogto dawladda maanta timid barwaaqada ay la kulantay iyadana inay nooga dhigo tii wixii aynu u diranay iyada oo aan waxba hakiranayn inta kari karta fuliso waana ku kalsoonay muuse iyo tiimka la shaqeeya inay fulinayaan anigu waxaan ka qayb galay barnaamijka xisbiga kulmiye oo cid walba ilaa reemiga loo geeyay waxaan ka qayb galay ololihii doorashada waddankeena wax wanaagsan baa ka socda dadka dibadda way iska baqaanuun yurub kubadda markaa ciyaaraan tiimka talyaaniga iyo ka ingiriisku garoonka isku laayaro maqaaxay ay jajabiyaan dadka faanki siyaasaduna wacankaas waxay leedahay dad iska mutadarafiina dadkan lama yidhaaho Jarmal iyo Talyaani baa islaynaya waa laba tiim oo kubadeed iyo faaniskoodii islaayay waxaan yar maqlaysaan baaq lagu qoriyo meel waa wax sugo dadku waa walaalo waa nabad waddanku horu u socdaa waa la shaqeynaya waxba baqashay yareen gelin waxa leeyahay halkan safiir baynu ka wada nahay dirjiryaal baynu wada nahay dalka inaga dad iyo u maganaasa inaga eeganayaan kuwa dibaddu inaga aqoon ugu tumayaan inaga adduun ugu tumayaan inagu waxa inoo wanaagsan inaynu halka Soomaaliland laantii aynu dhisi jirnay ka dhisno xisbiyada iyo waxyaalaha dalka gudihiisa ka socdana aynu meel iska dhigna intaas ka codsanaya dadweynaha sharafta leh ee reer Soomaaliland dhammaantood yar iyo weynba taasoo awalba aynu ku soo caanamaalay waddankana ku dhisanay gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyada Soomaaliland ee waddanka Suudaan Mustafa Cabdi Ismaaciil oo halkaas ka hadlay ayaa yiri 14 bishan ayaan hadduu ilaahay yiraahdo aan ku sameyn doonaa baarlamaanka hortiisa meeshan la yiraahdo mintoriadka taasoo aan doonayno inaanu ismuujino qadiyadeena runtii aynu muujino waxaana noqonaysaa barnaamij saacaduna waxa weeye 12 sidaas daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaantiin inta halkan joogta iyo inta maqanba iyo inta ay gaarsiin karaysiin baynaad u sheegtiinoo maalinta dhammaanteen inagoo isku duuban meel walba laga barnaamijyaaga maaha iswiin oo qolada ingiriiska laga sameeyaa oo Mareykan baa laga sameeyaa meel walba laga sameeyaa in inaguna aanu tusno reer Sweden haddaan nahay waliba gaar ahaan reer Stockholm inaanu badan nahay ma aynan 4 ama 5 qof ku tagnay inaanu badan nahay oo dadkuna runtii ay arrintan qadiyadeena ah inaanu u sheegno dadkan la nool nahay iyo dadka kale inaan gaarsiino maayirka golaha deegaanka ee magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo halkaas ka hadlay ayaa ka mahad celiyay xafladda loo sameeyay ee lagu soo dhaweynayo aad iyo aad waxay ka mahad celinayaa sidii qiimaha lahayd maalintii aanu dalka nimi ilaa maanta aad noo soo dhaweysay waa milgo weyn waa qiimo weyn waa sharaf waxaan moodayay in Soomaaliland uu joogay Gabiley marnaba ma aan dareemin cilmo annagoo dareensan qiimaha waqtigu idinku joogo halkan marka la joogo nolol adag baa runtii dadaal adag baad ku jirtaan waayo qof kasta oo Sweden jooga waxa garbihiisa saaran mas'uuliyad in ka badan 20 qof oo waddankii jooga arrintaa waxaan doonaynaa runtii inaynu ku baraarugno arrinta kale waxa weeye nidaamkan asxaabta badan dee dalalkan horumar baynu ka soo qaadanay anu mid baan horta la yaabarayo in qoladayada qodaal joogeed dalkii iska jooga iyo idinka in si leeydi la wada hadlo markay xagga xisbiyada noqoto iyo kala duwanaanshaha runtii aniga arrintaas ima dhanamaso annagoo kale waa wax nagu cusub dimuqraadiyaddu dee ma baana aragba laakiin raggiinan iyo haweenkiinan halkan jooga ee arkaya nidaamka asxaabta badan iyo siduu u shaqeeyo ee arkaya laba qof oo isqabaa inay laba xisbi yihiin oo aan colaadi ku jirin in la tartamayo kadibna qarankii la dhisanayo dee inay saameyn idinku yeelato doorashooyinkii asxaabtu ma aqli bay noqonaysaa aqli ma noqonaysa waxa aynu wada leenahay baa ka weyn waa choice waxani waa qof iyo fikirkii iyo aragtidii laakiin Soomaaliland iyo dadkeeda aynu jecelahay baa runtii ka weyn taa markay noqoto waa inay dadku ka sinaadaan arrintaas yaanay saameynin inaynu meeyda u dabaaldegno inaynu dalkeenii waxa weeye xaqiisii iyo xuquuqdiisii raadino iyo horumarkii guud ahaan dalka oo si sharaf laanu aaminsanahay inaanu uga dabaalanay hadday tahay abaartii gobolka ka dhacday
oo si dadaal weyn oo xilkasnimo leh runtii aanu ka muujinay iyo hadday tahay abaartii gobollada bariga ka dhacdayba oo gobol ahaan dadweynaha reer Gabileyna ay ku amaanan yihiin marka laga yimaado siday u qaabileen qoysaskii bariga abaartu ku saamaysay waxay sidoo kale caleentii Gabiley ka baxday geeli laascaano joogay baa ku badbaaday waa sharaf weyn oo runtii aynu wada leenahay oo waxyaalaha aynu dalahaana ku amaananahay weey iyadoo waxa soo duruufi jiraan haddana horumarkuna waa socdaa oo horumar wanaagsan golaha deegaanku inta joogay Gabiley intii tagtay waa aragtay ilaa in aan ka yarayn 10 wadaba magaalada ka hirgalay gobolka garoomo cusub ka dhismay police stationo isbitaallo xanaanooyin dadaal weyn waa sameeyay haddana marka loo eego baahida taalo dalkeena iyo waxa la qabanaya aad iyo aad bay runtii u kala fog yihiin waayo limited resource waxaynu haynaa waa wax kooban weey baahideennuna waa baahida qof kastoo bilaaadani uu baahan yahay haddana waxaynu u baahannahay inaynu sii dadaalno wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane liibaan yuusuf oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka Soomaaliland ee degan dalka Sweden ku dhiirigeliyay inay isku duubnaadaan meelna uga soo wada jeedaan qarannimada Soomaaliland waxay Soomaaliland halka ku soo gaadhay oo dawlad iskeed u taagan oo xuduudaheeda maamusha oo shaqaalaheeda iyo ciidamadeeda iyo amnigeeda iyo dawladnimadeeda maamusha ay ku noqotay waxa kamid ah dhaqaalaha ay bixiyaan qurbo joogto kaalmahaas oo dhan bay wadanka kaga jireen marxaladihii la soo dhaafay kaalmahaas ay ka qaateen maanta Soomaaliland marxalad ka duwan marxaladahaas ay maraysa wadankii waa dhismay waa amni dawlad xoog ah ka jirta kala dambeyn baa jirta maanta waxaynu u baahannahay laba arrimood oo ah horumar iyo ictiraaf maanta waxa loo baahan yahay kaalintii aad ku lahaydeen in aad qaadataan oo ah in aqoon soo waaridaan adduunyada halkan aad joogtaan waa aragteen dhaqaalaha halkay ka taagan tahay horumarka halkay ka marayso technology-ga halkay ka marayso ta halkan taagan in aad soo waaridaan oo Soomaaliland soo waaridaan baa la idinka fadhiyaa in guri la dhiso oo dib loo dhiso wadankii runtii waa laga koray oo marxaladda weyn ka gudubnay oo dadkii gudaha xitaa guriyihii dhisanaya qurux badan qurbo joogta waxa looga fadhiyaa maalgashi kii hore ka duwan inay sameeyaan inay maalgeliyaan ilaha wax soo saarka inay maalgeliyaan ayaa looga fadhiyaa runtii haddaan warbixin kooban idinka siiyo war idinkuma seegara wadankii barwaaqo ahaa roob fiican baa ka da'ay abaara 3 sano soo jiitamay baa wadankeeni runtii ka jiray xoolaheeni runtii in badan galaaftay oo runtii ay u leedeen dadku tacab badan iyo diif badan ka soo gaadhay alxamdulillah maanta hadda aragtaan Gabileyda maanta u fadhidaan dabaaldegeeda maayirkeeda aragtaan quruxda iyo dooga iyo cagaarka ka muuqday runtii aad baa u jeclaysanaysaa wadanka gobolada kalena badidoodu waa la mid roob fiican baa ka da'ay amni buu ahaa wadankeeni waa ogeydeen doorashooyin qurux badan baa wadankii ka dhacay sanadkii la soo dhaafay aad adduunka oo dhan inoogu amaaneen dawlad cusub baa dhalatay dawladda cusub runtii wax badan bay dadku ka filayeen madaxweyne ay ka go'an tahay wadankan halku taagan yahay in laga dhaqaajiyo oo meel ka wanaagsan la gaarsiiyo ayaa runtii aynu dooranay oo dadka reer Soomaaliland ay boqolkiiba konton ka badan u codeeyeen waxa muddooyinkii u dambeeyay wadanka Sweden booqasho shaqo ku imanaya mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah madaxda Soomaaliland waxaana kala qayb gali doonaan munaasabadda ballaaran ee fooda ku soo haysa ee 18 May oo si weyn looga xusi doono dalka Sweden Ahmed-Zaki Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada madaxda wadanka Sweden ee Stockholm.